soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta oo aynu ku dul istaagi doono kulamada bugbaxda ah ee Yuroga ee iminka soo dhamaaday 16 iyo kuwa la sugayo sideed dhamaadka ah. Waxaa ila jooga Sucad Samaara oo ah wariye ka faaloota ciyaaraha iyo sidoo kale nin weyn Maxamed Cumar Baakaay oo isna ah nin khibrad badan u leh ciyaaraha iyo tartamada Yuroga muddana la sugay. Maxamed Cumar Baakaay soo dhawow kulamadii hadda dhacay maxaad ka kulankee xiise gaar ah ku sameeyay wali maskaxdaada ku sii jira? بيس هذا أو ما سنتهاي رنتي وحقوم معجزة بدنا وحوي عيارته أو إن تلياني سويسرلاند سنة كانوا حدي كرا 2024 معجزة دي ويابك بدنا أي عيارها رنتي هالكن كدعية وحيابك وياهي أرتا تلياني وحوها لدنك عيارها قبضة عقدة يوروب وحكون عنه ودريم كرتا إن وحكلو أنربا ضدك إيو أنا قبل أنا أسكت شجنه سومالدو حيكون ما هذا ما يرانتي ذا مغلي جروءه ciyaari waa gelin dambe marka taasi runtii waxaan qabaa inaysan jirin oo ay tahay ciyaari waa gelinka hore waxaa gelinka hore dubo ama goolashaada keenso gelinka dambe runtii waxa sameyn karto samee ama difaac gal markay kalsooniya qabtaa sababtoo Talyaaniga hadda waxa ku dhacay waxa weeye fakti horeba qaybta hore ciyaarta 45 daqiiqo ayaa runtii wacdar qabsaday Switzerland qaybta labaadna goolkii labaad loogu daray marka taasi runtii liyaab ay noqonaysaa taariikh marka dib u raabno oo aan ugu laabano Manchester City oo dooriyaalka Ingiriiska haysto kale fiiri goolashoodii qaybta hore ee duwanayeen marka waxaan qabaa ciyaari waa gelin hore ee geli dambe ma aha wanda kurkur iyo naxdin badanaa runtii imaanayso Ingiriiska waxa ku qaadatay 120 daqiiqo inay ka adkaadaan Slovakia waliba gool ay dhaliyeen daqiiqadii ugu dambeeyay ilbirqsiyada ugu dambeeyay wax 30 ilbirqsi ka yar inta aanay kulan ku dhamaan Bellingham uu dhaliyay qaybtii dambana uu dhaliyay Harry Ingiriisku ma aha dal ciyaaryahanadu ay ku yaryihiin ciyaaryahanada high level world class players oo ciyaaraya in waxay wataan difaac ahaan dhexaan dhan walba way ka dhisan yihiin waxa ka qaldan Ingiriiska ciyaarihiisa horta aad u muhiim marka loo fiiriyo qaab ciyaareedka Yuroga xilli ciyaareedadii ugu dambeeyay ciyaarayeen heerkan hadii soo gaareen dad badan oo qaba inay xataa koobka qaadi karaan laakiin khaladaad yar oo waxaa jira qadka dhexe iyo dhanka markaas daafaca isku daadsanaan aad u badan iyo xulashada macal soodgeed oo aad loo dhaliilay marka loo fiiriyo xidigaha uu soo qaatay oo dadka qaar ay filayeen xidiga badan oo markaas meesha ka maqan haddana waxaan isleeyahay Ingiriiska si fiican uu ku socdaa inkastoo qaladaadkaas uu iska saxi karo maadaama uu soo gaaro wareegga dhamaadka haddana kulankaas heerka uu la gaaray ama daqiiqadaha iyo waliba ekstraha lagu daray mu u qalbin Ingiriiska laakiin waxay ahayd kubadda ayaa mar walba dhan walba isku wareejiso oo waxa arkaysa xulal la hadda Turkiga oo kale ba aragtay malaga filan stage-kan inuu soo gaaro waana xul markaasi marka loo fiiriyo xulalka ciyaara xulka ugu yar oo kamid yahay Turkiga kubadda cagta aad looga xiiseeyo haddana waa xul hadda soo koray marka Ingiriiska waa ismuujin doonaa la wareegga dhamaadka aad marka kulankoodii Slovakia xitaa inuu dul istaagno waxaynu arkaynaa qaybtiisii hore 45 daqiiqo hore waa la hayay Ingiriiska inta badan kubadda waa laga hayay waa la dominate gareynay iyaga la handadaay qaybtii dambe bedeladii uu sameeyay daqiiqadii 65aad marka uu Balmariyo uu keenay wax ku keenay ma ku muuqata tusaale ahaan dad badan waxay arkaan Bellingham iyo Phil Foden oo kala qaabka ay u ciyaarayaan ama shaxda aanay ugu dhici jirin inay xoogaa Ingiriiska soodgeed uu ku degdegay tusaale ahaan ka imaatinka Madison oo ah nin ciyaaryahan la bardiisha fursado badan abuuri kara taas ku muuqata ma ciyaaryahanada oo ka yimid marka shay xidigaha uu sameynayo maxaan ku raahdaa bedelada iyo xidigaha uu marka hore soo shirtaga hadda Phil Foden ka dhawaajisay saameyn badan kuma lahan Ingiriiska dadka qaar xataa qabay soo qaadashadiisa inay ahayd qalad in uu soo xusho macal soodgeed haddana waa uu soo qaatay maadaama oo kooxda Manchester City uu wax badan markaas la soo qabtay xidigna inta badan kooxu ku fiican yahay marna xul ku fiican yahay oo sida xidigaha kooxaha kale aan ku kala aragnabo waxa arkaysa hadda Maguire aragtay wuxuu ku fiican yahay Ingiriiska laakiin marka Manchester United la tago Otreto iska dhalina qalqal badan aad Baakaay waxa arkaynaa Faransiiska open play goals wali lagama hayo waxay wataan ciyaaryahanno waaweyn oo goolal badan soo dhaliyay tusaalahan Mbappe oo kale 40 gool wax ka badan sanad ka dhaliyay kabihii horyaalka dalkiisana soo qaaday hadda goolba waxay dhaliyeen 3 gool oo laba kamid ah ayeen iska dhalin Faransiiska maxaa iyaga haysta kulamadooda waa boring baa la leeyahay la mid ma Faransiiska waliba 8 sano ay ugu dambeysay waxay tagayeen finaalada Yuroga iyo laba jiro koobka adduunka maxaa Faransiiska iyaga ka qaldan Faransiisku waxa ka qaldan markaan fiiriyo qaab ciyaareedkiisa qadka dhexe oo runtii aad u muliso inuu qalqal uu ku jiro waana dareemi karaa ciyaaryahankan laacibka oo magac weyn kule Mbappe oo isna moodayso inuu dhaawac uu ku jiro oo qof runtii
firfircoonadii markuu fiyoowaa uusan haysan laakiin qadka dhexe ayaa laba nooc u ah qaabka ciyaareedkooda oo aad ay ugu liitaan waxaa kaloo jirta baaskan baasku dhiibka ah oo gaagaaban iyo baaska dhaadheer waxaan aaminsanahay baaska dhaadheer in ay ku filan tahay minut hal daqiiq keliya inuu goolhayaha uu soo dhigo dhexdan oo mid kale qaad qofka saddexaad oo lambarka sagaalaad uu dhiibo saasna shabka uu ku dhalin karo waa baaska dhaadheer faa'iido ay leedahay laakiin dadka daawanaya ciyaaraha baaskan gaagaaban waxay jecel yihiin oo saacada iyo waqti dheer qaadanaysa si uu goolku ku tago labadaba ma hayaan waxaana keenaya qadka dhexe oo aad u baabaasan faransiiska marka bortuqiiska uu ku aadan yahay waxaa ka soo bixi karana runtii lama qiyaasi karo inkastoo bortuqiiska ronaldona uu daalan yahay oo runtii xilligiisii iyo waqtigiisii ay mooddo inuu dhammaad yahay haddana cayaarta keliya ee aan la qiyaasi karin waa bortuqiiska iyo faransiiska ciyaarahan sideed dhamaadka ah marka aynu eegno Samara adoo sii raacaya Turkigana waad xustay Turkigu difaacan kulankii u dambeeyay aad u fiicnaa kubadihiisuna waxa ay ku dhisnaayeen long passeska waayo Syria waxay ka mid tahay dalalka pressingkooda uu saa'id ka yahay kulamada hadda la ciyaarayay soo taajabinaya waxa uu sameeyay long passes marka ay build up ka joogto kubadaha dhaadheer inuu ku baxsado sidoo kale set pieceska ayaa ahaa awoodii ugu weyneyd ee kulankii hadda ay guuleysteen waxay ka hortagayaan Netherlands oo Van Dijk oo kale uu gudaha ugu jiro bal Turkiga soo bixidooda iyo kulankooda soo aadan ka oran Turkiga sanadkan aad u shidnaa marka loo fiiriyo qaab ciyaareedkooda iyo waliba sida ay xulalka markaas ula soo ciyaareen sidoo kale kulankii ugu dambeeyay xataa wacdaraha ay sameeyeen wuxuu u muuqdaa xul aan isdhihi kara xataa afar dhamaadka uu sii tagi doonaa marka loo fiiriyo qaab ciyaareedka iyo sidoo markaas sanadkan isku soo dhisay Turkiga wuxuu ka mid ahaa wadamada aad markaas kaga liita Euroga inay markaa heerkan soo gaaraan stagekan inkastoo dhowr mar ay soo gaareen haddana sanadihii ugu dambeeyay Turkiga xulal badan oo ka fiican yahay hadda Talyaaniga kale ka fiican yahay oo heerka uu soo gaaray Talyaani ma soo gaarin waana xulalka aad looga bartay in heerkan ay soo gaaraan Talyaaniga sideed dhamaadka oo Talyaaniga ee ka maqan yahay ma nuuri jirin kubadda cagta Euro laakiin sanadkan waa ay dhacday balse bedelkooda waxa galay Turkiga oo wacdare ka sameeyay marka Turkiga ana waxaan isleeyahay shaxda hadda macalinka hogaaminaya uu ku wado hadduu xoogaa ka bedelo dhanka maxaan ku rahdaa gool dhalinta oo kale weerarkiisa weerar kale ku soo darsado waxaan isleeyahay aad bay u qurux badnaanaysaa kulankoodii ugu dambeeyay kala hognaa oo ka maqnaa ciise raacsado Samara sida sheegtay Turkigu wuxuu rabaa inuu taariikh dhigo oo runtii oo mucjizo ku noqdo ciyaarahan heerkan uu soo gaaray waana kooxahaas oo kale markaas oo kale waxay u ciyaaraan cemented ah oo lama malaysan karo Turkiga markaa saalsan waxaan qabaa markan oo kale wuxuu rabaa inuu score iyo taariikh dheer uu sameeyo mar haddii halkan uu yimid wax elin karaa waxa weeye ma sheegin mucjizo kale laakiin markan waxay ciyaarayaan lafahooda maskaxdooda ciyaartooda qatartoodana waa leedahay inay u soo gudbaan xitaa wareega Leicester oo kale uu noqon karaa golyarigooda oo ciyaarta kadib hadlay waxa uu yiri waxa weeye shaqo badan noo taala waa niyad fiican way noo dhisaysaa inaanu ka adkaano Austria nimaana sidii dhamaadka oo markoodii koowaad ay bugbaxda ku imanayaan oo heerkan soo gaaraan rikorayaal ana ku soo bixin saddex jeer hore yimaadeen sidii dhamaadka aynu dul istaagno Spain oo ka mid ah dalalka hadda awoodooda ay muuqato kulankii ugu dambeeyay Georgia ay la ciyaarayeen 4 gool iyo hal ay uga adkaadeen Isbaanishka awal waxa looga bartay kulamadoodii hore ilaa 2012 tartamada waaweyn si fiican u maana ciyaareen laakiin marka European Nation League ay qaadeen laga yimaado tactically marka loo eego Isbaanishka dheeraad waxa ku ah garbaha kan weydka Lamine Yamal iyo Nico Williams oo space fiican u furaya Morata oo marka ay kubadda soo qaataan sidaana fursado badan ku abuuray tusaale ahaan Lamine Yamal oo kale ilaa 4 fursadood uu caawiyay 12 baasna uu sameeyay Nico Williams kulankii dhawato gool uu dhaliyay mid kalena uu ka soo shaqeeyay garbaha dheeraadka ku ah tiki-takadii loo yaqaanay ay ciyaari jireen waxay uga hortagayaan Jarmalka ma uga adkaan karaan runtii Spain iyo Jarmalka waa tan kaliya ugu daawasho wanaagsan bay noqon doontaa waxay la tahay ciyaar la daawado ciyaartii ugu qurux badneed inay noqon doonto sababtoo ah dad shaxdooda iyo qaabkooda la ciyaaro runtii way tahay waana looga cabsi qabaa runtii ama Spain ama Jarmalka ani Ingiriiska waxba uma hayo oo yani Faransiiska waxba uma hayo waa labada dal ee aan ugu cabsi qabo sanadka 2024 waa Spain iyo Jarmalka midkood haddayna kala baxayaan alada finaalka ciyaarayaan yes yani hadday kala baxayaan saasoo finaalku ciyaarayaan ka qaadka soo baxleedaado marka kooxdii soo baxdan u maleynaya laakiin taadkadan isku dhiibka gaagaaban ee Spain iyo Jarmalkoon aqaan
runtii mucjiza ka dhacayso meeshaas waxa weeye jarmalka waxbaa haysto inkastoo oo laacibiintiisa cusbiyey oo dad khatar u wato haddana qaab isku dhiibkan gaabgaabka ah khatarteeda leedahay Spain ay ciyaarto aad iyo aad isku dhiibkaas khatartiisu leeyahay jarmalka awoodooda ugu badneed hadda kulamada ay ciyaareen marka tactical loo eego rotationka in ciyaaryahanadu boosaska isku bedelaan waxay ahayd waxa ugu weyn ay awoodooda ku dhisneed oo Nagelsmann uu dhisay tusaale ahaan gaar ahaan afarta boos ee hore Firtis Jamal Musiala Gundogan iyo Kai Havertz oo dhammaantood ciyaaryahanada rotation sameynay marka qaybta waxaan arkay Jamal Musiala iyo Firtis oo hal garab ka wada ordaya ama Gundogan oo lambar 9 kaba ka ciyaarayo Kai Havertz oo gadaal joogo kulanka Isbaanishka sida Bakay uu sheegay waa kulanka ugu xiisaha badan sida dad badan ay qabaan waayo labada dal ee goolasho ugu badan dhaliyay midna 10 gool u dhaliyay midna 9 gool u dhaliyay bal Jarmalka awoodiisa iyo kulankaas Jarmalka sanadkan dabcan asiga martigelinaya koobka Euro 2024 stage fiican waa uu joogaa caradiisna inay caawiso waa laga yaabaa laakiin lama qabo Bakay in labadooda mid ay qaadi doonaan oo dhanka Ronaldo jiraani ka samaar ahaan waa taageerada hadda markaa kubadda fiiriyay ilintii Ronaldo ilintiis waa koobkii qaadaysaa inkastoo wax walba ay nasiib tahay wana tartankiisa ugu dambeeyay aad iyo aad sidoo sheegay waa Euro-ga ugu dambeeyay dabcan uu ciyaarayo Jarmalka si fiican uu ciyaaraa inkastoo sida laga filayo uusan ahayn haddana wali wuxuu iska meerayaa taariikhdii koobka adduunka ku dhacday ee lagu qabto wadankaas Qatar Euro-gu waa inuu ku madax degsado maadaama uu martigelinayo uu xasuusto koobkaasi dabcan ana waxaan isleeyahay Jarmalka iyo Spain mar walba waxa top class Spain xidig fiican uu ciyaarayo oo horyaalo kala gedisan ka yimid xidigaha ugu badan ee hadda ugu caansan adduunkana waa Spain dabcan ka baxeen oo Spain u dhasheen haddana waa xidigaha u ciyaaraya aan mar walba horta top class ay tahay Spain waana uga cabsi qabaa koobka inay qaadayso ama hadda basaan isku afgaranay ama waa Spain ama waa Jarmal Soomaa ma kula qabo laakiin waa u qalan tahan taaganaha Spain top class ay tahay waa xulalka aadka rajayna inay qaadi doonto laakiin Isbaanishka waxyaalaha weaknesskooda la sheegay finalku soo gaaraysa laakiin ma qaadayso aad iyo aad Isbaanishka marka la eego weaknesskooda marka la sheegayo waxa kamid ah waa aragnimada aad iyo aad ay koobka macnaha ciyaaryahanada ciyaaraya tusaale ahaan Pedri oo kale Lamine Yamal oo kale Jamal Musiala oo kale waxaan leeyahay ninka la yiraahdo Nico Williams oo kale waa ciyaaryahanno aad u taageer waana awoodda ay ku tiirsan yihiin Jarmalka markaad eegto ciyaaryahanada uu ciyaarayo hadda uu wato waa wada experience waa wada shidan yihiin waa khibrad badan leeyahay Euro xulka ugu shidan khibrad aan meedisha Isbaanishka khibrada waa dili kartaa kubadda cagta waa cad iyo madow waa nasiib xulkii xun ayaa xul badi kara xulkii fiican laga badin karaa Spain ma laga badin karo kuma dhahayo waa laga badin karaa haddana waa top class yihiin marka loo fiiriyo si u ciyaarayaan iyo dhanka weerarka qadka dhexe daafaca waxaas oo dhan waa shidan yihiin laakiin meeshan waxa taala waxa la dhahaa nasiib ayaalo nasiibkaasna kooxaha jeceshow dabcan caawinayaan marka Portugal hal sii koob ma nasiibku waa gaar waay meesha aad waxa ka hadlayna nasiibka ma hadlayna waxa ka hadlayna lugtaas waa ka hadla laakiin nasiibka iyo aqligan ka hadlayna iyo farsamada iyo qorciise ciyaarta soo socota Spain iyo Jarmalka qaybta hore ayaa ku kala ogaanaysa natiijada waxaan aaminsanahay Jarmalka fakta horeba inuu goolashiisii iyo wixii kale inuu ku qaadan doono taas oo micnaheedu tahay maamaadii hore ciyaari waa geli dambe oo meesha waa ka baxaysaa ciyaari waa geli hore Jarmalku wuxuu dubanaa Spain qaybta horeba aad iyo aad Jarmal soo baxay taagantahay yes waa caddahay Samara waxay sheegtay Portugiiska inuu favorite uu yahay Cristiano Ronaldo kulankii dhaweyd inkastoo uu rikooro uu cunay ilin badan ay ka dhacday haddana way soo baxeen 2016 ka xasuusanaa saano kale uu ilmeeyay koobkan uu qaaday dabcan France la ciyaarayeen finaalka waliba waxa xasuusanaa Eurogaas in Portugiis uu ku soo gaaray badis kuma soo gaarin barbaru ku soo gaaray ilaa finaal hal mar xataa ma uusan dabcan ma badin oo inta badan barbaru sameeyay hadda Bakaya weydiinaya Portugiiska marka hadda dul istaagno ciyaaryahanada dhammaantood waa academic players oo ka soo wada baxay Benfica, Porto, Sporting waana ciyaaryahanno badanaa tactically ula qabsan kara tactical play of ama qaab ciyaareed isle oo markaad eegto Bernardo Silva iyo Bruno oo kale waa ciyaaryahanno tactical players marka dad badan waxay leeyihiin Portugiisku awoodiisu way ka badan tahay inta la arkayo hadda ciyaarahan ay soo bandhigeen fashilkana waxa la leeyahay Martinez oo tobraha Portugiiska wuxuu leeyahay wuxuu ku fashilan yahay inuu keeni waayay hal qaab ciyaareed oo ciyaaryahanada team work ahaan ula shaqeeyo marba waxa arkaysaa ciyaaryahanka kulanka maqan ama Ronaldo kulanka ka maqan
ama Bruno la maagaya kulanka ka maqnaa ama Bernardo Silva la maagaya ama Rafaelio la maagaya dadku falcelintooda kulamada ciyaareen hadda macna mar walba waxa muuqata in ciyaaryahanadii si collectively aan u shaqeynayno hadda ciyaaryahan u dansan yahay Martinez eeda iskala tababaraha leeyahay arrintaas ma ku muuqata ani ima muuqato sababtoo ah waxa weeye tababarahan go'aanka uu qaato waa mid uu arko inuu guul ku keeni karo waxaan kala ogaataa ciyaaraha qof iyo laba qofood saddex qofood iyo Ronaldo kuma cirna dadka keedka fadhiya iyo waxa kala wada ciyaarayo waa dad professional ah oo inta sheegtay oo meelahaas dhan ka soo wada ciyaaray not loo xirnaan karo ama qofka maxalliga Ronaldo meesha ka maqane waana laga badinaa macnaha ma aha Ronaldo boqol kale saddex ama dad kale keed ku jiro Ronaldo ka qatarsan jiro waxaan qabaa Ronaldo waa badaalan yahay sababtoo ah marka oo tacticada oo tababarahan Portugiiska uu la soo baxo inuu kala hortigi karo Faransiiska u jeedaa sigoo jiisayo soo baxay oo heerka ku soo gaaray inkastoo Portugalka naftirkiisa oo asna lakigiisa nasiibkiisa wato laakiin tababaraha go'aanka uu qaatay oo ah inuu badbadalo waa qatarteeda leedahay waxaan qabaa Portugiisku inuu Faransiiska dardarayo aniga Samara adiga muhiim qata dhalisha Martinez loo jeedinayo ciyaaryahanada Portugiiska marka tayadooda la eego ayo ciyaaraha ay soo bandhigayaan dhalishada tababaraha miyaale mise odayaashu waa daalan yihiin wuxuu dhahay Ronaldo daalan yahay malaha waa Messi fansa u maleynaa baaka hadii aan la sii kaftamo oo Ronaldo aad kaga soo jeeda Ronaldo waa dhiig kaliya Portugal ku socoto Ronaldo la'aantiis Portugal inta ma soo gaartay hadda waa daalan yahay ma daalno 42 gool la markii koobka la qaaday xisaabta ku reebay moogtahay aad ciyaaryahanka Ronaldo horta 40 gool 40 dheeraad u dhaliyay oo kabta Yurub kabta goolasho baysa qaadaan aad xidig walba daalan Ronaldo kaligiis ma daalno haddaan sii difaaco kubadiisa Cristiano Ronaldo waa dhiig kaliya Portugal ku socota la'aantiis horta ma dhaqaaqi karto eedanta Martinez waa la qabaa Bakay iyo qaab ciyaareedka xidigaha iyo bedelka uu sameeyay macalinka Portugiis waxa aad kaga qaldan falsafada uma saxna mar walba uu la soo galaayo mana kala yaqaan xidigaha keedka u fadhiyo fiican iyo kuwa ugu jiro gudaha oo mar walba leen aab ka soo dhigay mar walbana waxa fiican in la ogaado qaybtaada hore waxyaabaha ka xun si xidigahaaga fiican ay kaga soo kacaan qaybta dambe ama sidoo kale adeegsato in aad la soo gasho qaybta hore shar oo ah inaad koox xulka aad geliso maxaan ku raadaa daafac kuwa dambe marka goolal badan haysato aad soo geliso oo xun marka inuu kala bartay ahayd oo gurubyada inta badan lagu soo tijaabiyaa xidigahaaga fiican iyo xidigahaaga xun oo lagu kala ogaadaa oo ala kala safaa markaasoo waxaa fursad u haysataa in kulamo kala aabadis haddii hal kulan lagu qabto ku kala ogaato xidigaha fiican marka waxyaabo badanaa ka khaldan oo falsafada uu la soo galaayo mar walbo macalinka aad kagama fikiro midda kale in Ronaldo uu keed dhigo iyo in Bruno Fernandes uu keed dhigo wax asiga dhibaayo waaye sababtoo ah mar walba waxaa la isku dhaafaa khibradda iyo xidigaha moraalkooda xidiga shalkeed diglisay maanta ciyaarayo si fiican kugu ciyaarayo hadda laakiin aad ka dhigto in kooxda uu leeyahay dhiigiisina uu yahay aan Ronaldo waxaan isdhihi karaa xataa waa tababaraha Portugal macnaha suu u dhiirigelinayo suu u hadlaayo suu maxaa u dareemayo guusha hal xidigo oo ma jiro kubadda cagta Messi xataa la taageero oo kubadda ku codooynaa ma arkin laakiin guushu jecel yahay yani horta laacib kasto oo dal uu leeyahay ay ku faanaan waa magaciisi Ronaldo Portugiiska mar inay soo galiyaan meesha oo ka dhex muuqdo maahane waxa ka qatarsanaa Portugiiska keed u fadhiyo tababaraha isbedelka oo sameeyo waa ku taageersanaa aniga waxaan aaminsanahay inuu guul ka keeni karo hadduu saab ku soo marka statistics-ka aad raacaysa waxaad leedahay Ronaldo 20 shoot u sameeyay tartankan hal gool lama aanu dhalin yes goolka waa nasiib inuu dhimantaa laga yaabo afar dhamaadku wax badan dhali doono aad Samara Netherlands ka waran iyada kulankii ugu dambeeyay Romania si wacan ay uga soo badiyeen Gagbo gool uu dhaliyay mid kale uu caawiyay mid kalena saddex ay geeyeen Romania waxa ay la ciyaari doonaan Turkiga oo aynu soo falanqeynay Holland markaad eegto qaab ciyaareedkooda wax badan kama duwana qaabkii lagu yaqaanay collective footballka inkastoo ciyaaryahanada qaybtooda aanay ku soo baxeen bal Netherlands dulta horta Netherlands kama filineen in ay soo gaari doonto stage-kan waliba wax ku soo baxday kaalin saddexaad ay ku timid meesha aad iyo aad haddana waxaan is leeyahay waa markii loo fiiriyo Turki way adag tahay Netherlands oo Pogba u ciyaara xidig markaas cajiib aad kaga soo dhex muuqdo koobka Euro iyo xidiga badan oo markaas Hollandeesa aniga Netherlands way ka soo baxaysaa is leeyahay Turkiga inkastoo wax walba isbedeli karaan oo Bakay sheegay Turki meel uu socdaa uu dhahay oo Turkiga dhiirigelintiisa ay badan karto xidigahana ay markaas soo bandhigi karaan nasiibkiina wali ay taalo kubadda cagta taale haddana waxaan is leeyahay Netherlands ani already marka fiiriyo tacticada qaabka u ciyaarayaan macalinka duu ka bedelo bedeladoo kale iyo shaxda dhanka qadka dhaxo kale duu wax badan ka bedelo waa soo bixi karaan okay ciise Samara see sheegtay waa runtii
waa la qabaa laakiin aniga Netherland Turkiga taariikh u dhigaya taariikhdaasna waxay u noqonaysaa mid la yaab leh waana ka badanaya waa caddahay sababtoo ah moralka ciyaartooyda iyo xilligan adag iyo meesha ay soo gaareen ayaa xambaaraysa una fiirso taariikhdaasna waa dhici doontaa laakiin sida hadda gabadhan walaasha ay qabto waxaan aaminsanahay Turkiga inuu dardarayo moral yani waxaan ka hadlayaa maxaa la niyadda ciyaartooyda niyadda ay ku socdaan heerkan ay soo qaabka ay isula qabsadeen ciyaar ahaan sidaa bilowgiiba aan ku bilownay dalka ilaa hadda marka laga yimaado Isbaanishka iyo Jarmalka tactically dad badan ay isweydiinayaan waa Switzerland Talyaaniga si wacan u garaacday laba gool ka dhalisay kubadda ka haysatay shudad badan ku baalkeysay si doonta ugu ciyaartay kulankaas Switzerland waxa ay la ciyaari doontaa Ingiriiska Southgate oo England waxa uu sheegay in kulanka ay diyaar garow badan u sameyn doonaan tactically marka la eegayo ama farsamo ahaan bal Switzerland iyo Ingiriiska iyaga ka waran ciyaartooda soo aniga Ingiriiska wax badan baa ka qaldan marka eegto sida aan maanta uu ku soo baxay oo ah runtii ciyaarta heerkan ugu soo gaaray oo qaybtii hore intuu gool looga hormaray haddana qaybta labaad oo yaa nasiib ah waxaan ogaa wiil ciyaarta ila daawanayo Ingiriiska taageersanaa markii uu qaybta hore ciyaarta ku dhamaatay hal gool oo Ingiriiska lagu leeyahay 10 jeer oo kacayo fadhiisanayay walwalka iyo walbahaarka maxaa keenay marka ma taqaana taageeraasha xataa garoonka baxeen qaar garoonka baxay waxa sababta uu leeyahay waay ciyaari waa gelin hore Ingiriiska qaybta hore oo hal gool lagu lahaaba qaybta labaad iska soo gudeen daqiiqadii u dambeeyay wadna xanuunaa jiray okay waxa aaminsanahay marka tababaraha dhaliisha iska leh oo hogaamiya Ingiriiska saas doo ku socdo runtii waxaan qabaa in uu meel dheer gaareen laakiin tan uu hadda uu kulankan soo socdo waa dhici kartaa inuu badiyo laakiin meel uu gaarayo koobkan Ingiriiska uu ku qaadan karo ima muuqata aniga marka loo fiiriyo qaabka tababaraha oo u maamulo ciyaaraha ama uu xusho Samara ku muuqataadi sidaas ani wax walba horta aan nasiibka mar walba dhahaa xulul fiicana arkaa ayagoo laga badiyay koob adduuna arkay koob Euro soo daawada arkay kooxo kala ku qiimeyn kara kooxo fiicana mararka qaar jalaafo loo dhigaa Arsenal xasuustaa labada xil ciyaareed ugu dambeysay iyadoo top 1 ah hoos la soo dhigay marka ani waxaan isla Ingiriiska koobka Euro uu qaadi karaa mana qaadi karo haddana mar walba ma shaqeynayso Bellingham inuu badbaadiyo Ingiriiska qaab ciyaareedkooda kulankiina aad u xasuustaa kulankaas wuxuu ahaa kulan xataa aan dhalada iska dimi Ingiriiska xoogaa waa la jiraane oo isdhahay Ingiriiska khalaas waa haray oo isla markiiba dhalada dib u shiday kadib markii goolka uu soo celiyay xataa taageeraana arkeen garoonka soo laabana ayagoo sii baxay kala ord ku soo galaya marka Ingiriiska mucjiso sameeyay kulanka ugu dambeeyay ku soo baxay haddana waxaan isleeyahay wali waa haystaa fursad uu ku qaadi karo koobka inkastoo Spain iyo wax badan ay ka soo horeeyaan markaanu eegno dalalka hadda soo baxay Faransiiska iyo Portugiiska wada ciyaari doonaan Isbaanishka iyo Jarmalka wada ciyaari doonaan iyagu labadaas afarta dal labada soo baxa waxay isku arki doonaan afar dhamaadka Ingiriiska iyo Switzerland iyana sidaan hadda falanqeynayna ama faaleynayna way sarkayaan Holland iyo Turkiyana way sarkayaan afarta dal labada soo baxana waxay isku arki doonaan afar dhamaadka road mapkaaga bakay ahaan barsawir yaa soo bixi doona afarta sideed hadda soo harays wallahi hadda waxa ii muuqato inuu soo bixi doono Isbaanishka iyo Jarmalka Isbaanishka iyo Jarmalka waxaan qabaa inuu Jarmalka soo baxayo koow Faransiiska iyo Portugiiska waxaan qabaa inuu soo baxayo Faransiiska Portugiiska waxaan dareemayaa inaan awood habacsanaan fara badan waxaan kaloo Netherland iyo Turkiga inuu soo baxayaan qabaa taas waa ii caddahay Turkiga niyadda uu ku socdo iyo qaabka uu dheelayo waxa jabhada uu kala ku tilmaami karaa inuu heerka soo gaaranayo ay u tahay taariikh weyn Southgate ameenkii dhawaato ay la ciyaarayeen kulankiisa loo magaranaysa Slovakia Joe Hart oo falanqeeyaasha BBC-da kamid ahaa oo qaybta live-ka wax ku qorayay wuxuu leeyahay wuxuu ila ekaa ama aan dareemayay in ay ahayd ciyaarta Iceland 2016kii hal iyo laba iyo halka marka Southgate waxa uu marayaa imtixaankii ugu dambeeyay hadii tartankan uu xilli hore haro inuu shaqada wareejiyo laga yaabo contractkiisuna oo almost waa iska dhamaanaya kulankaas isagan Switzerland iyo Ingiriiska Ingiriiska inuu soo baxo waa u badan tahay sababtoo ah inuu wax ka bedelo tababaraan aan dhaliilayo qaabka uu ku wado sida Samara ay sheegaysina tii had u dambeysay nasiib uu ku yimid Ingiriiska nasiib leh ma ku socona waa su'aal waay nasiib intuu ku geen karaa
كل يوم مش عيد ايه ترى عرفت مالك كست عيد كوما اها موقتها مالك كستو نصيبها كوب بدن هنا قلاداتكيس loo sheegay هو laga yaabaa. كبدل انجليزي qaabka ugu socdo horta aniga sanadka 2024 ingiriiska ma u malaynayo inuu qaadi karo marka aan fiiriyo Jarmalka iyo Spain isku dhacay labadoodu midkoodaan qiyaasay inuu qaadan doono hadii la yiraahdo laakiin ingiriiska hadda kulankan soo socdo wuu ku soo bixi karaa imtixaan adag samar adiga road mapkaaga Spain iyo Jarmalka inuu ka bilowna Spain iyo Jarmalka ani markaa fiiriyo Jarmalka bye bye ale Spain dabcan ka soo bixayso haday caawiso ma aqaan Germany wadanka maadaama wadankeedu martigelinaya carada ay caawiso mukulaal mininkeeda micili wax ku leedahay la dhahay taas inay caawi doonto ma aqaan laakiin markii aan u hadlo kubadda cagta waxa soo baxaysa Spain Faransiiska iyo Portugiiska taageernimo marka u hadlo Portugiiska soo baxaysa laakiin falqeen ahaan marka u hadlo Faransa soo baxaysa hadda falqeena ka hadleenahay sama maya laba beel aada sida ay jeceshahay awood muuqda okay kala tahay macna awood muuqato aniga horta Faransa waa ka watay laakiin marka Ronaldo arkay dhankiisa soo aaday oo isleedahay tartankaas ku shaqo xoogaa asiga ku gabagabeeyo marka loo fiiriyo laakiin awood Jarm waxa ka fiican Switzerland iyo Faransiiska fiican Switzerland iyo England horta Ingiriiska hadaa macallin Southgate loo sheego qaladaadkiisa iyo hadii xidigaha hadda ciyaaraya Harry Kane iyo maxaan ku rahdaa Bellingham iyo dhig isku yeelaan macallinkana wax badan uu iska bedelo dhanka qadka dhexe isku xirka ka imaanaysa in kubadaha la dhaliyo dhankaas oo kale hadii isku xirmaan qadka dhexe weerarka sidoo kale daafacana guulasha laga hormarayo iska ilaaliyo wuu soo bixi karaa laakiin aan Ingiriiskaasi Holland iyo Turkiga dabcan waa la qabaa baaka in Turkiga soo baxayso marka loo fiiriyo sidii hadda u ciyaarayso waliba aysan rigoor ku soo gaarin oo heer fiican ku soo gaartay stage-kan ani waxaan isleeyahay baakaana lama qaadan karo xulkan ahdu adag marka loo fiiriso oo ciyaarayaan Hollandeeska lama sahalsan karo laakiin waa ku qaatay Turkigaasi aad uma santiin intaas inuu ku soo gabagabeynaa tartanka qaramada Yurub oo hadda loo gudbay sideedamaadkiisa lagana soo gudbay 16ka kulamo adag oo xiiso leh oo The Last Dance ciyaaryahanno badan ay u tahay sida Toni Kroos oo kale Ronaldo oo kale ay u tahay ay geemamkaas soo socdaan oo aynu arki doonaa kadib aynu soo laaban doonaa mahadsanidin